السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنا وناكسنا خيارة قيمة هي قدرنت مدنها ودنا قد جيسير ساي halkani waa idaacada jigjiga FM mowjada dhererkeedu iyo 9 xal akhyaare waxa la gaaray adeed nooga bartay inaan soo tobino baahinteena subaxnimo ee wararka caalamka waxaan idin la socodsiin doonaa idinkuna diyaar ah anigoo ah Bashiir Abbas ururka shaqaalaha beerta ee dalka Jarmalka ayaa ku baaqay shaqo joojin 13 Maarso oo ku beegan maalinta Isniinta garoomada diyaaradaha ay waqooyiga dalkaas ay ku jirto magaalada Berlin taasoo ay sheegeen inay sababi karto safarro dhaadheer oo rakaabyo ah ama inay dadku iska joojiyaan safarrada duulimaadka shaqo joojintu waxay saameyn doontaa maadarka caalamiga ah ee Berlin iyo sidoo kale garoomada yaryar ee Hamburg, Hannover iyo Bremen laamaha gobolka ee ay qosayso arrintani iyo ururka shaqaalaha qaybta adeegyada ayaa sababi hadal qoraaleed ay soo saareen Verdi waxay sheegtay inay ugu baaqayso shaqaalaha ammaanka inay shaqo joojin ku sameeyaan maadarka Berlin sababo la xiriira muranka ka dhashay mushaarka shaqaalaha habeenkii shaqada maalmaha fasaxa iyo maalmaha fasaxyada bankiyada kuwaas oo murankoodu socday muddo sanado badan ah waxaana ka mid ah shaqo joojinta shirkadaha duulimaadyada oo ay ku jiraan Lufthansa, EasyJet iyo Air France waxayna shaqada bilaabaan xilliyada hore ee waabariga iyagoo dhameynaya shaqada saqda dhexe ee habeenimo dawladda Colombia iyo jabhadda Iran ayaa soo dhaweeyay horumarinta laga sameeyay dadaalada lagu soo afjarayo dagaalo sanado badan ka socday dalkaasi koonfurta Amerika kadib markii ay soo gabagabeeyeen wareegii labaad ee wadahadallada nabadda oo ka dhacay caasimada dalka Mexico City Odi Patino oo ah madaxa ergada dawladda Colombia uga qayb galaya wadaxaajoodka ayaa sheegay in caqabada ugu daran ay noqon doonto sidii xabad joojin halkan looga hirgelin lahaa si wareega xiga ee wadahadallada oo ay marti gelinayso Cuba loo sii bilaabo wadaxaajoodadii hore ee lala galay jabhadda Iran ayaan hirgelin sababo la xiriira dhinaca kala amar qaadashada iyo khilaafka ka dhex jira gudaha kooxaha darteed baarlamaanka dalka Shiinaha ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Li Jing oo saaxiib dawlo ah madaxweynaha dalka Xi Jinping ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay madaxweynaha Xi Jinping ayaa golaha kala kulmin wax diidma ah kulankan ay saaka ku yeesheen aqalka golaha magaalada Beijing ayaa bedelaya ra'iisul wasaarihii xilku ka dhamaaday Li Keqiang oo 63 jir ah ayaa helay dhammaan codka 2900 ee ay ergadu ka koobnayd ee codka lahaa codeyntan oo ahayd mid diidmo laga filanaynin ayaa imanaysa xilli maalmo uu ka hor madaxweynaha Shiinuhu ku guuleystay inuu mar saddexaad hoggaanka dalkaasi qabto isagoo aan cid ku tartamin kursiga magacaabida Li ayaa loo arkaa inuu madaxweynaha Shiinuhu dadka daacadda u ah hoggaankiisa geynayo boosaska muhiimka ah ciidanka ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa bilaabay hawlgallo dhinacyo badan leh oo lagu badbaadinayo boqolaal qaxooti ah oo saaran doomo cidhiidhi ah kuwaas oo lagu arkayo meelo ka baxsan xeebaha gobolka Calabria wax ka yar hal toddobaad oo ay dad ka badan 73 qof ku qarqoomeen badda markab qoosay dad lagu qiyaasay 1300 oo qof ayaa la aaminsan yahay in naftoodu halis ku jirto kuwaas oo saaran doomo yaryar oo aad cidhiidhi u ah iyadoo doomaha u xil saaran yihiin ilaalada xeebaha loo diray si ay u soo badbaadiyaan 500 oo qof kuwaas oo saaran doomo sabeynaya meel xeebaha ka baxsan 1125 kiiloomitir halka doomo kalena loo diray inay badbaadiyaan 800 oo qof oo saaran laba doomood oo kale oo ku ciladaysan meel u jirta xeebta Calabria 160 kiiloomitir ilaalada xeebaha ayaa ka codsanaya ciidanka badda taageero dheeraad ah si dadkaas loo badbaadiyo ku dhawaad qaxooti gaadhaya 3000 oo qof ayaa gaadhay dalka Talyaaniga taniya Arbacadii taas oo ah farqi weyn marka la barbar dhigo bishii Maarch ee sanadkii hore 5 qof oo la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda daroogada ka ganacsata ee Mexico ayaa loo xidhay dilkii afduubka ahaa ee dhawaan dad reer Mareykan ah loogu geystay gobolka Tamaulipas ee ku yaala xadka Mexico iyo Mareykanka sida ay mas'uuliyiintu sheegeen laba qof oo Amerikaan ah iyo haweeney Mexican ah ayaa ku dhintay kadib markii rag hubeysan ay rasaas ku fureen maalin cad kadib markii afar group oo Amerikaan ah wax yaruun kadib baabuur ay wateen orod ku soo galeen magaalada Mataros iyagoo ka yimid dhanka magaalada Texas saddexdii bishii dadkan la afduubtay oo afar ahaayeen Amerikaan ayay laba dhinteen hal qofka saddexaadna ay ahayd haweeney Mexican ah sida ay saraakiisha wadankaasi sheegeen waraaqada ay ku saxeexan yihiin kooxaha sheegtay inay Natasha ama wakiil ka tahay gacanta Gretel ayaa lagu sheegay in 5 qof la xidhay ay mas'uul ka ahaayeen dad xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Tamaulipas ayaa war qoraaleed oo soo saaray ku sheegay
in la soo qabtay 5 nin oo looga shakisan yahay inay ka qayb qaateen aftuubka iyo dilka. saraakiisha Mexico ayaa baaraya suuragalnimada ah in xubno ka tirsan wakiilada gacanta Cartel ay aftuubka dalkaasi ka mid ahaayeen. waa hagaag dhageystayaal, intaasi waxaa noogu dhan warkeennii subaxnimo ee baahinta wararka caalamka. waxaan idin socodsiinaya isla mar ahaantaas in idin soo diyaariyay anigoo ah Bashiir Cabbaas Cali. akhyaareed intaan ku kulmi doono hadahan oo kale waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nolol kulante.